xalay waxay ahayd habeen madow waxa uu dab xoogani ka kacay suuqa weyn ee Kismaayo gaar ahaan suuqa shidaalka ma jiraan wax dhimasho ilaa iyo hadda balse halka waxa ku burburay hanti aad u tiro badan waxaan u ahaa goobjoog in badan ayaa dabka lala tacaalayay dabkaas oo socday muddo saacado ah hase ahaatee la xakameyn waayay waxa halka ku sugnaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyo sidoo kale ciidamada dibdamiska sidoo kale ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan dad goobjoogayaal ah ayaa noo sheegay in dabku uu ka kacay inuu dabku ka dhashay shoor uu kiciyo matoor nooca loo isticmaalo bambaynta shidaalka xilli fuustooyin shidaal lagu shubayay